Dowladda Suudaan ayaa hakisay dhammaan badeecadihii laga keeni jiray dalka Kenya kadib markii Nairobi lagu martigeliyay kooxda RSF oo ciidamada kula jira dagaal sokeeye oo 2 sano socday. Bishii la soo dhaafay, RSF iyo kooxaha ay xulafada yihiin ee siyaasadeed iyo kuwa hubeysan ayaa Kenya ku saxiixday axdi aasaasi ah oo ay ku muujinayaan rabitaanka in dowlad laga barbar dhiso Suudaan. Xukuumadda militariga Suudaan ayaa sheegtay in mamnuucidda soo dejinta ay tahay mid lagu ilaalinayo madax-bannaanida dalka iyo ilaalinta ammaankeeda qaranka. Dalka ay dagaaladu ragaadiyeen ayaa waxa uu Kenya ka soo dhoofsadaa dhowr badeecadooyin oo ay ka mid yihiin shaaha, badeecadaha cunnada iyo dawooyinka. Dhammaan badeecadaha ka imaanaya Kenya ee soo mara dhammaan dekedaha, isgoosyada, garoomada diyaaradaha iyo dekedahaba waa la joojinayaa maanta ilaa amar dambe, ayaa lagu yiri wareegto ka soo baxday wasaaradda ganacsiga Suudaan.